marka aad shaqo doonato inta badan shaqooyinka waan aragnaa waxaa la iska qaadaa interviewga waa waxa ugu dhibka badan ee shaqada lagu helo Soomaali ahaan marka kuwa interviewga qaadaya ma yaqaanaan sida interview loo qaado kuwa laga qaadayana ma yaqaanaan interview waxa uu yahay maanta waxaan eegaynaa marka interview la qaado kuwa ugu adkaa waliba laga gudbay qofkiina shaqo uu ku helay interviewdaas ayaan maanta mawduucani ku faaqideynaa aan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doonto hadda waxaad noo muuqda waa tarakh ama kibriit aan tirina marka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xab ayaa noo muuqata meel interview lagu qaadayay ayaa waxaa soo galay qofkii interviewga laga qaaday oo shaqada doonka ahaa marka uu soo galay xaal su'aasha ugu horeysa la weydiiyay ahayd sigaar ma cabtaa wuxuu yiri sigaar ma cabo horma waa cabto weligii ma cabin okay waxaa la yiri tarakhan waa ujeedaa 10 xabaa ku jirta aniga sigaaran cabaa halkan sigaarkan ku shitay sigaarkii la shitay waxaa la yiri maanta soo hartay 9 xabaa soo hartay way 9 kan aad u jeedo waxaa laga rabaa maadaama ay 9 tahay inaad 10 ka dhigto ninkii waaya wuxuu yiri tarakhna ma haayo banaanka ma aadi karaa uu yiri haa waa aadi kartaa 3 daqiiqo halaysiyo 3 daqiiqo wuxuu sameeyay dadkii u dhawaaya ayuu weydiiyay tarakh maysa ma haayo qof kasta yiri waqtiga ayaa ka dhacay goobtii ayuu ku soo laabtay marka goobtii markuu ku soo laabtay waxa leeyahay jawaabtan kaaga fadhiyaa marka shaqadan 1200 qof ayaa soo codsatay qof kasta interview ayuu maray marka la yiri marka haye jawaab maysa wuxuu yiri haa jawaab waan hayaa wax yar isug bal ila fiiri marka okay ninkii maadaama 9 tarakh uu haysto ee la yiri 9 kan waa inaad 10 ka dhigtaa xaaladdan ayuu isticmaalay 10 ayuu qoraal ahaan ba ka dhigay wuxuu sameeyay tiida 2 tarakh ayaa ku jirta iidana 4 sidaas 6 tarakh ayuu ku joogaa intana 3 ayaa ku jirta 9kii asaga muhiimadda waxay ahayd 9 kan waxa la yiri 10 u bedel ja 10 waa u bedelay ninka marka wuxuu noqday 1200 qof ninka kaliya ee shaqadan ku guuleystay interviewga markaan leeyahay Soomaalidu kuwa qaadayana ma yaqaanaan interview kuwa laga qaadayana ma yaqaanaan waa sidan oo kale shirkadda Pepsi kulay waxaan maleynayaa qof muuqaalkan daawanaya oo Pepsi aanan arkin ma jiro productiga Pepsi waa cabitaanada acidka ah inta badan shirkadaha sameeya Pepsi shirkadaas ayaa la yiraahdaa madaxa shirkadan shaqada ayuu ka tagay waxyaabaha uu shaqada uga tagay marka lagaaga sheekeeyo waa qiso la yaab leh shirkadda Apple ayuu hadda u shaqeeyaa sababta uu shirkadda Apple inuu u shaqeeyo keenta Pepsi-na uu ka soo tago aan wax yar in la wadaago ninkan kaga sheekeynaya ee Pepsi shaqadeeda ka soo tagay Apple-na hadda u shaqeeya waa John Scully iyo waxa hadda ka hor kulmay waliba 1983 ayay ahayd iyo Steve Jobs waa ninka shirkadda Apple iska leh way kulmeen way sheekeysteen waxaa la yiri marka Steve Jobs su'aal uu weydiiyay John Scully ayaa ku qasabtay in John Scully uu ka tago shaqada Pepsi una soo wareego shaqada Apple su'aasha ayaa ahayd marka do you want to sell sugar water for the rest of your life or do you want to come with me and change the world waxay ahayd su'aasha ma waxaad doonaysaa cimrigaaga inta ka dhiman Steve Jobs ayaa ku dhahaya John Scully ma waxaad doonaysaa cimrigaaga inta ka dhiman inaad ka shaqayso sokor iyo biyo la isku daray ma waxaad doonaysaa inaad ii timaado si aan dunida wax uga bedelno su'aashaas John Scully waxay ku dhalisay in uu ku dhiirado inuu ka tago shaqadii Pepsi una soo wareego shaqada Apple waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka heshay haddii aad hore saaxiib noola ahayd muuqaalkan like saar sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahay loobin intaan dib dambe qaybta labaad ugu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo